inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad and the chick made the black. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad and the chick made the black. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad and the chick made the black. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad and the chick made the black. waxaa caawa lagu guuldareystay in magaca iyo dadka milkiilayaasha ah oo xaaskiisa Zainab ay ka mid tahay Farmaajo in la bedelo magaci oo dad kale oo shaqo ku lahayn lagu waxeeyo. waxaa kaloo fashilmay magaalada Kampala Uganda. waxaa war huban iga soo gaaray caawa in maxamed cabdullaahi farmaajo qoyskiisa walaalihiisa iyo xaaskiisa iyo dad abtiyaashiisa iyo qoyska madaxweynaha Uganda warshad sokoreed ee meesha ay ka furteen iyo dhaqaalaha dalka hantidii la dhacay ee Uganda uu geysay wadamada Yurub duugist waa laga xayraa usii Uganda uu geysay dhaqaalihii qoyska ku qoray maadaama warbixinta ay qorayso muddo sanad kadib oo sharci darro ah inuu madaxweyne farmaajo oo ku joogo xukunka dalka waa heshiis iyo wax sharciyada soo lahayn doorashadina oo hortaagaya dad kale oo ilaa 85 qof dad kor waxay soo saareen 40 dhowr xildhibaan ah oo mursal ku jiro. marka yaan shakada intaan u gelin shakadan aadin dhameeha oo farmaajo qoyskiisa walwalkii awal baharka haay waxay ogaadeen in aan akoomada Uganda ku yaal maadaama dal dictator yahay oo Museveni oo san markan dimuqraadi shaqo ku lahayn lacagta akoonkaas taalo bangigaas taalo inay la baxaan magaca oo milkiyadana la bedelo maadaama qoyskii oo farmaajo oo kiiski soo galay. warkaas war canshuuran waaye war huban waaye. waxaa kaloo war aan ku maqlay aan hubnayn waxa huban iyo waxaan hubnayn kaliya. waxa huban waa madaxweyne qorqor iyo lafta garan maamul goboleedyada qorqor iyo lafta garan afka hore waay. waxaa loo digo waa Dani Ali Guudlaawe iyo ninka leeyahay Axmed Madoobe labadaas waaba ku jiraanba markay dhiigay ku galeen dad ay ku laayeen doorasho hufnaan laga rabaa inay qabtaan waa diideen kursi dhigley ku fadhiyaan labadaas oo ku jiraan. waxaa kaloo ku jira ganacsato badan oo la yaqaano oo Soomaaliya kuwaas loo madigin waa ku jiraan farmaajo iyo taliyaasha hijaar iyo taliyaal hore iyo wasiiro hore iyo xildhibaano hore iyo xildhibaano hadda waa ku jiraan. waxa loo digaa kuma jiraan. waxaa loo digaa kaliya saddex maamul goboleed iyo ra'iisul wasaare Roble doorashada waa qaban waa inuu yiraahdo 25 bisha ka hor wuxuu qoriyay inuu doorashada ka qaban laayahay madaxweyne farmaajo iyo ciidamada booliiska iyo militariga Soomaaliya. saas darteed dawladda Soomaaliya waa ku fashilantay qor warqad Roble in doorasho la qabto haddaan qaban lahayna ninkaasana goor taagan. okay asiga waxaa laga rabaa hebel iyo hebel inuu idaacad soo istaago doorashada ka qaban lahay doorashada la boobay guddiga doorashooyinka waa ku jiraan guddiga doorashooyinka uu ku yiraahdo xoohay maaragtay waa in dadka aan hufnaanta ku soo baxin waa la sugayo kuraasta la boobay waa in go'aan laga gaaraa doorashada hal la dedejiyo idin maayo. waxaa laga rabaa kaliya doorashada ka soko 25 ka soko Roble waxa loo digaa ku jira asiga dacwada geey awalna waa urkor gareysnaa waxaan laakiin waxay diideen maadaama hadda ay talaabta u horeysa inay tahay dadka kale inaysan boobin oo ku dhiiran inay wax boobaan. Roble wax kale laga rabo. Roble waxa laga rabaa inuu yiraahdo waa qaban waaye yani doorashada hebel aan ka qaban waaye oo intaas laga rabaa. laakiin maxaa ka horeeya inuu guddiga doorashooyinka
iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxa socda doorasho maaha waa xulasho inuu idaacadda soo istaago uu yidhaah saas iyo saas baa laga rabaa sorry iga raalaada waxaa kaloo idin sheegaa qoyskii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo c b b da maanta waxay ku kaceen farxaan maxamed jimcaale wariyaha b b c da waa b b c madax bannaan markaasay ahay adkaysi ma laha waxa uu yidhi kaliya madaxweynaha muddada halka sanaa sida sharci darrada ku joog baale ah uu adkaysi waayo ma beenuu sheegay b b c waa hay-ad madax bannaan v o do kale waayo waa ka weyntaaba lama caburin karo caay iyo aflagaadba ay farxaan maxamed jimcaale ay caawa saaran yihiin wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo sanad guuradii shalay u haadooyey oo sharci darra iyo waa heshiis uusan ku joogin sharci iyo heshiis inaad ku joogtaa raafilada askum dowladnimaa lagu jiraa ma dal afgembiye lama haayo laakiin asiga waxay la tahay inuu wax afgembiye laakiin dadaashaha dadaal cagiliya soomaaliya waxa waaye askum dowladnimay ku jirtaa laba dimuqraadiyada madaxweyneyaal hore iskaga tanasulay markii laga badiyey doorasho qabteen marka asiga wuxuu caawa la rafanayaa caay iyo aflagaad u geysaan farxaan maxamed jimcaale labada qodob oo lagu eedeey ugu waaweyn waxa waaye caburinta dadka shacabka inay banaanbaxa boorkaas kacdoonka shacabka muqdisho inuu socdo waa qabo weyne waa inala xabadeeyey waa iska tiirin siyaasiyiinta ka fikirduwan waa diliyey iyo doorasho hufnaan ah iyo dalka inuu dowladnimadii iyo wixii lasoo dheelaya gacanta ay ka dhaceen ayuu sheegay dowladda maraykanka ciqaabtiina waa la marsiidada dhahaayo cunaqabateynta baasaboor kaliya ma ah waxaan caawa idiin sheegay in hantida ay ku xogtaa isdhihiina mogtaa oo ku soo dari doono cunaqabateynta ilaan mar hore intuuna sheegin ka hore oo ka shaqeeyaba inaan hantida lala kudin magacyada inaan la bedelin inaan la shaqeyn marka dadka soomaaliyeed ee samahay dowladnimada jecel reer muqdisho waa sabarteen waan idinku hambalyahaa inaad sabarteen oo isna dalka burburina barkee idinka awood waa taqaani maxamed siyaad barow intaa ka awood badan oo ciidamada afarta talis iyo dalka oo dhan raas xaseen raaska doonahaya ayaad kacdeen kacdoonkaas 26 maalmood ku qaatay kana waxba maaha waa nin oo mentally ahaan aniga saan qabo aan fiyoweyn sababtoo dal amazon joogto oo shabaab canshuura dekadii elaboorka ee dacash canshuuraysa yaa waa afgembiha ee magaalada muqdisho iyo magaalada baydhabo ciidamo amazon iyo ku hayaan dhuuso mareeb iyo guraceel ahlu sunnada qabatay lagu dilay lagu dhibaateeyey qorqor yaa aan afduuba yaa wax socaaya ma caqligaa diidaa ninka raggaa wax waa afgembiyaa laakiin waa dal isku aadan oo ciidamadiisi u xisbaan oo adduunyada ka madax banaan oo ciidanka dowladda soomaaliya inay awoodo al rabaa amnigeeda iyo tafsiilaadkeeda kale elaboorkii madaxtooyada amisona ilaalis albaabka amisona ku furan walxaan aan afgembiha uu leeyahay walxaan boobaa uu leeyahay 2 sano ku darsa waxaas oo dhan socon maayaan waan ogeyn inay soconin marka waxaan leeyahay rooble xilku maaha naanees waa inaad shaqaysataa waaba kula yaabane marka dhis amniga lagu wareejiyo waa la yaabane laakiin miinaane waa la arkay laakiin adiga au sababa ushiis laga arka ushiis laga tumaa hal qalin hal warqad faadiyaasi wax ka dhib badan ma jiro waan hawada ku cunta tali xijaar iyo odowaa iyo midkan ku simaa yaasin farey saddexdaas iyo ku xireenka ninkan leeyahay bixi ninkaas odowaa waa iskaga magacaaban yahay dembigana korku ku saaray dadka hadda warbixinta lagu soo qoray oo ka mid yahay dadka uu cadcad waaye oo ku soo baxay waa soo baxeen maraykanka waa ka soo baxeen laakiin ma faafin weli laakiin ummadda soomaaliyeed waxaa ugu bishaareha ninkii hantidii farmaajo oo uganda tiil bal feres uu fikiro farmaajo iyo qoyskiisa waxay ku fikireen wadamada yurub ma anfacayso sweden lacagta dhigatiin ganacsiga geysatiin waa idin la xayiraa laakiin dalkan dictatorka oo saaxiibkiina uganda dhigta ugandana waa la hayaa dhab waa la hayaa caawo intaas aan ku bishaareha waxaan leeyahay boobaa la bariyay xumba leh
hanolaada kacdoonka shacabka muqdisho canshuur bixiyaa dulmo ganacsato badan oo soomaaliyana waa ku jirtaa asalaamu calaykum